wasiirka xafiiska biyaha deegaanka Soomaalida Mudane Xasan Maxamed Xuseen oo waraysi dhinacyo badan taabanaya xafiiskiisa kula yeeshay gaar ahaan aan ka xog waraystay xaaladaha biyaha deegaanka Soomaalida ayaa ay sheegay inuu in ka badan 80 degmo 6 ismaamul magaalo oo kamid ah 12 gobol ee deegaanka Soomaalida uu socdaal dhulka ku soo maray muddo 4 bilood gudaheeda si loo xaqiijiyo hanaanka adeeg bixineed ee biyaha deegaanka Soomaalida gaar ahaan xilliyadii adkaay abaaruhu hulaaqeen deegaankan marka laga yimaado madaxweynaha deegaanka Soomaalida waa safarkii ugu dheeraay abid deegaanka Soomaalida uu ku soo maray wasiir ka tirsan gebi ahaanba xukuumaddiisa xiga ee deegaanka Soomaalida sidoo kalena ujeedooyinka socdaalkan ee wasiir Xasan Maxamed Xuseen ayaa daaraa gudashada waajibaadkii shaqeeyay loo iyo doorkii xafiiskan biyaha ee jawaab celinta xaaladihii abaaraha gaar ahaan dhanka biyo dhaaminta wasiirka xafiiska biyaha Mudane Xasan Maxamed Xuseen ayaa sheegay inuu socdaalkaasi dheer uga gon lahaa kormeerka iyo kulgalka hanaanka adeeg bixineed ee biyaha dayactirka iyo hufnaanta fayaqabka biyaha ay cabaan bulshada deegaanka Soomaalida xarig jarka iyo daahfurka mashaariic cusub oo isugu jiray biyo gelino cusub oo si degdeg ah loo dhameystiray dhismahooda iyo sidoo kale ogaanshaha biyo xidheena iyo ceelal tiro badan oo deegaanka ka socda deegaanka Soomaalidu qolay waa deegaanada nature ahaan ama guud ahaanba iska ag deegaano qallayla iska ah biyo badan aan lahayn roobkuna aaduna ugu badnay badankiisa marka laga reebo gobol iyo laba marka laga reebo adeegyada ay maxaan ku laga qabtay hadda ka hor xag dhinaca biyaha ay aad u liitaan waxaan rajaynaynaa markaas in hadda wixii ka dambeeya bilowgan hadda aan bilownay inaan sii wadna ayaan rajaynaynaa haddii aan la yiraahdo ceelasha aanu qodnay ee cusub sanadka waxa weeyaan 33 ceel baan qodnay 33 ceel yaan hadda sanadka qodnay oo isugu jira emergency iyo kuwa qorsheysnaa isugu jiray ceelasha marka waxa jira marka qaar kood daraasada la daraasaynayo waxa dhici karta in biyo laga waayo ilaa 6 ceel baan biyo ka weynay oo noqday maxaan ku drain noqday ama qaar kood ay noqdeen milix oo inta biyo laga helay biyaheedu ay bilaadan iyo xoolaha ay isticmaali karaynin ilaahay qaranka ka qodnay marka hadda waxa biyaha laga cabay laga helay waxa weeyaan si fiican looga cabayay waa 27 ceel weeyaan halka 3 aan qodnay ee 6 aan biyo ka weynay waxa kale oo jira iyada sidoo kale inaanu ka shaqaysiinay oo qalabayno afka ka furay 32 ceel 32 ceel baan intii abaartu hadda jirtay aanu afka ka furay oo hadda bulshada ay ka cabaysaa martaasna waxaan oran karaa waa kulay dadaal aanu ka sameeynay markii aanu kormeerada sameeynay wixii ceelalaha xidhnaan aragnay kuwa badan hadda noo qorsheysan baa jiro inaan afka ka furo aan rabno hadda u soconayaa jira waxa jiro oo kale kuwa kale inaan qodno aan rabno hadda iga emergency-ga oo kale ilaa 23 baa noogu jirto oo qaar koodna ay crane baahan jira service rigi ama drilling rigi ay dul taagan yihiin qodayaan qaar koodna ay qorshaha noogu jiraan oo u raadinay riga qodi lahaa ilaa 7 qorsheysnaaba iyaga laftoodu noogu jira qaar koodna la qoday qaarna la qodi doona hadii la yiraahdo geesta kale waxa uu noo sheegay wasiir Xasan Maxamed Xuseen inay shaqo fiican oo la taaban kara ka soo qabteen dhanka isla xisaabtanka habasanaantii farsamo iyo midii maamul ee ka jir ila biyoodyada gobolada iyo degmooyinka deegaanka Soomaalida waxa jiray ila biyo fara badan oo horey loo sameeyay oo aan shaqaynaynin baa jiray oo fadhiyay waxa jiray ila biyoodiye markaa socday oo mashaariic socotay ahaa laakiin gaabis fara badan ka jiray ama aad moodo in la iska iloobayba oo aan wax fara badan oo shaqo ka soconin qorshayaal kulka war xafiiska uu yaalo in ceelal la qodi iyo wax la sameeyo way jireen waxa kale oo jiray markii dambe aanu aragnay xaaladdu siday tahay talaabooyin aanu qaadnay baa jira oo saxitaana waxaan marka koobaad ee meesha tagnay isku daynay inaanu saxno wixii ila biyoodii laga cabi jiray ee xumaaday sidii loo saxi lahaa sida darteed waxaanu sameeynay inaanu hawl gelino tiimam kala duwan oo laba nooc isugu jira tiimam wata light vehicles wata ama baabuur yar wata oo u badan dadkan electricianka iyo techniciankan maxaan kula sida fudud wax u dayactiri karaya ama early warning sameyn kara oo uga soo digi kara wixii dhibaato ay jiraan oo iyagu intay badan yihiin gobolada iyo degmooyinka ku baahsan oo meel walba soo maraya ceel kasto dhibaato ka jirta ama ilbiyood kasto dhib ka jira soo gudbinaya degdeg u soo gudbinaya xaaladda dhibka ee meesha ka jirtana soo sheegaya wixii ay markaa xallin karaan ay on spot ku xallin karaanna xallinaya kuwaas deploy garaynay oo u kala diray degmooyinka iyo goobo kasta u kala diray waxa kale oo iyadana sameeynay tiimam ilaa 6 tiim ah 4 ilaa 6 tiim u dhaxaysa oo maxaan ku rahday marka qaar koodna 6 way gaarayeen marka qaar koodna ilaa 4 bay ku soo ururiyeen
gobolada u qaybsan oo wareegaya oo iyagu wata heavy machinery wata crane iyo surface rigs iyo baabuurtii waaweynayda ee qalabkan waxa lagu dayactiraya ama bam ha noqdo ama generator ha noqdo ama razor pipes ha noqdo ama kebeladii iyo wixii loo isticmaalay ha noqdo qalabkii electromechanical-ka ahaa iyo tuubooyinkii wixii uu u baahnaa ila biyood in la dayactiro ama ceel la dayactiro u baahnaa baanu waxaan ku raadayeen yaanu qaybinay oo gobolada u qaybinay marka kuwaasina waxay ahaayeen standby bay ahaayeen meel kasta goob kasta oo marka laga soo sheego inuu ceelku xun yahay una baahan yahay heavy maintenance uu baahan yahay bay galayeen saas markay galaan kadib baadeedna laga hagaajinay ceelka laga cabayay marka waxaan dayactiray number ahaan markaan soo dhigo ilaa hadda waxaan dayactiray inta abaartu bilaabatay 290 ceel baan dayactiray 290 ceel baan dayactiray hadda oo mid walba wixii laga bedelay iyo wixii ay si detail oo ay report ugu qoran yihiin waxa kale oo marka aan iyadana dayactiray biyo gelimo hore oo intay fadhiisteen magaalooyin inta biyo loo geliyo aan laga caabin hadda ka hor laakiin u baahnaa in la maintain gareeyo oo dib loo dayactiro tiina waanu sameeynay sidoo kale markaad aragto degmooyinka oo kale siday biyaha u maamulayaan iyo muhiimadda ay siinayaan tii loo baahnaa ma ahayn dadka markaan u tagno waxaan wacyigelin siinay maamulada degmooyinka iyo maamulada biyaha ee meesha ka jira intaan la kulmayaan wacyigelin siinay kuwa goboladana siinay isku xid baanu sameeynay si ila biyoodkan ay u maamulan lahaayeen si iyagu xoog u saari lahaayeen waxyaabo yar yar oo minor oo iyagu ay qabsan karaan oo ka dhiman oo mashruuci dhanna uu taagan yahay wadaqaysa mashruuci dhanna baa lagu dhimay shidaal la'aan buu taagan yahay yaa lagu oran shidaalkii budgetkii dhanna degmada haystaan waxa ugu horeeyay muhiimadda in la saaro ay ahaydna waxay ahayd waa maxaa la yiraahdo maxaan ku raahday waxay ahayd biyaha in la saaray hayla biyuhu waa naftii way noloshii weeyaan qofka bini'aadanka aduuna biyo helin noloshiisa kale ma jirayso wuxuu caafimaad u baahanaya ama uu cunto u baahanaya wax u baahanaya horta markuu biyo cabo u baahanaya biyuhu marka waa aas-aaska nolosha weeyaan marka inay qoliyaha degmooyinku fahmaan maamulada degmooyinku inay fahmaan muhiimadda koobaad waxa la siinayay miisaaniyadooda marka hore laga bilaabaya inay biyaha tahay qiyaasto ahayd si guud bulshada deegaanka Soomaalida ku dhaqan ayaa bogaadiya hawlaha dardargelinta iyo dhaqaajinta mashaariicda horumarineed ee dhanka biyaha oo xafiiskani muddo gaaban gudaheed kaga midho dhaliyay Saad Abbas Ali